maanta oo bisha May tahay 30 kulankan oo ah kulankii ugu horeeyay oo xubnihii heer qaran ee ra'iisul wasaaruhu magacaabay fadhigoodu oo halkan ka bilaabmay iyadoo ay weheliyaan xubnihii kale ee guddi hoosaadyada ah oo 3 guddi ka kooban guddiga amniga guddiga muxuu ahaa arrimaha bulshada guddiga maamulka iyo guddiga heer gobol afarta guddi ka kooban waxay maanta fadhigoodu koowaad u fariisteen maamuuska iyo qadarinta ay leedahay maalmaha xorriyadda qaranka Soomaaliyeed oo bishaan ay inuu ku soo wajahayaan laba munaasabadood oo midna ay tahay ciidii Carafo oo islaamka oo dhan aan u hambalyeynayno iyo midaan inoo gooniyada oo maalmaheena xorriyadda oo maamuuska iyo xuska inuu ku lahayd oo sharafta iyo qiimaha iyo ciska aynu ku fadhina maanta halgankeedii loo soo galay intii dhimatay oo ku soo halganteen Allah u naxariisto intayadii kale oo xorriyadda ku soo gaadhay si sahlanna inaan u dabaaldegno oo xusno oo xusuusano abaarna qabato weeye shacabka Soomaaliyeed meelu joogaba waxaan leenahay waxaa la idinka rabaa inaad adkaystaan oo maamuustaan oo calamada iyo muxuu ahaa hadii Ilaahay dankeeda leeyahay goobaha dhigtaaniin oo dhulka nadiifisaan oo ay idinka muuqato maalmaha xorriyadda 26 Juun iyo 1 Luulyo qiimaha aynu ku leeyihiin maadaama dadkeennii hore oo dadaalka u soo galay aynu inagu maanta si sahlan xorriyad iyo sharaf ugu noolnahay iyo dhulkoon iyo xora marka dadka Soomaaliyeed sidaasaan meelay joogaanba ku wacyigelinayna u sheegaynaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh